أما أن شيء أما اللي حسابتني ولا توجي يحسك دوافري من توجي على صوص فني أديك كان ناصر دمر الدولة بسيان بره أديك يا الدولة أنا ناجي إننا كعيان حصل شيء نجاوا ناكتار يدك كذا نجاوا إذا كأنا رانا نجاوا جناح ستة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشغول بدك بعد وصول لابتي وحن مشغول كوها إذا شيء ما يواجهون هاي سواء سعتين I am come back هذا شوفوا بدن بعد عيامات والله يشوفوا يا ديارها سومك هلا حرت سومك هلا حرت وهذول يستاهل يا حسن الشيخ محمود يا على الكيس وقلمد وحلبدي قلمد وكتشدي يا هاي محانا لك الربع دولة دوال قصة الدولة حقي كالنعضي معارض معها وحان وغرد دميز حسن الشيخ محمود حسن منافق سوف يسمانت تمامكو هياي وكدول يستاهل يا مانت wax kastana waa ku wadsoonadana waxaan cadeyn lahayna way iga reebay al-Adaala wasiirka warfaafinta ee wiilkii jeer weyne ka dhacay booska iyo kiisa ku sidkan ee madaxay furan TikTok radana ayana waa u yeeraya waxaan leeyahay kaala idin kaala point waa idin ku hayaa maanta dhiiqa idin ku hayaa way idin istaagayay hal kalo fariinana oo baaqana dhalinyarada beelweyta harti ee media isticmaasha media halkan kaga jidhay ayaan halkan hal eray dhihi doonaa fariintaasna gaanbay ku tahay gaarsi waxaan ku hormaraya xasan sheekh maxamuud xasan oo hadlaya waxa uu yiri sidatan ana uga jawaabay cid kale uga jawaabi mayse waxa uu yiri halkan muxuu ahaa hebel xaq ka dhacay hebel tuug ahay hebel kan ahay oo rasan iyo baar aan lahayn oo hadii lagu qabsado sharciga lagu horgeeyo lagu raacday waxa aad ku hadashay adan cadeyn karin dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaadaan meelaha ay ducfiga ku leeyihiin si ay isaga soo qabaan hadaadan ogeyn ducfigaaga wariga ka bimaysid dadkeena ducfiga ay qabaan waxa waaye caatifada qabaliga awaay waa mareexaan farmaajo waa mareexaan dadka deegaankan u dhashay waa inay maanta soo baxaan waa tuug kaasi waa tuug kalkaal yaa midka madaxda u ah ee aan qabsanayn ama aan sheegin ama aan la xisaabtamayn madaxweynuhu horta waxa uu sheegtay khudbadu waa dheerayd calaacal badan baa ku jiray in la mucaarado inay khalad tahay haddii aan la ku rooyahay waana la caayaa buu leeyahay aflagaado madaxweyneena xasan sheekh oo 67 jir sanadiisu tahay madaxweyne horena soo maray waa ninkii media la taagnaa farmaajo naaga fudhay baad ilma ka dhalaysa sida markaan leeyahay de luqada xamar looga hadlo I don't know laakiin gobolada aanu ka imid iyaga Soomaaliya dhaqanka yaalaahi raggu inta wixii ka sareeya waa iska xifaaleeya ama ka wada hadla waa xudunta wixii ka sareeya wixii ka hooseeya kama xifaaltamo iskamana dacaayadeeyo kamana kaftamo adoo madaxweyne soo maray oo aan ahayn kabtaayadu meesha tafariyo meesha dad ka tuuriyo aan ahayn madaxweyne Soomaaliyeed kale adoo wax ka sheegaya ninkii yiri baad ahayd naaga aad furtay baad ilma ka dhalaysa hadalku waa margi oo dhinac loo jiito dad badan oo Soomaaliya ku dhibayana waa jiraan ninkii waxa sameyn jiray mucaaradnimada tiimkiisa inta adaab la dhihi jiray farmaajo waa mareexan ayaa maanta nooga sheekaynaya mucaaradnimadu inay wax xun tahay arskud madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay kelmad ah tuugnimo midda aan raba maanta inaan ka jawaabana waa midda ilma adeerayaal fariintaasi qaanba idinku tahay iga gaarsiiyay madaxweynuhu si sheegay madaxweynuhu wuxuu yiri tuugnimo nin hanti dawladda dhacay kii qariya waa tuug wuxuu yiri kii adiga la ku reeyay mas'uul dawladeed oo qariyana waa tuug kalkal markaanti baan kaaga ahay hanti dawladda wixii dhacay inay tuug yihiin tuug waliba ku xun yihiin laakiin madaxweyne bas dadkan shacabka dhageyso anigu kaaga jawaabayo su'aasha ila dhageyso
dawladda siyaad baraan naqinay adinka noo soo daba maray dawladda siyaad bare adinkiyo dawladda ina naagahiinna kiciyaan xasan shiiq naga qabo naagtaada iyo dadkaaga naga qabo ciidankaada aan raadaan madaxweynaha naga qabo ganacsatada na weeraraysa masaakiin baan nahay dad jiran baan nahay dad maskiin aan nahay dad awood lahayn baan nahay dad aan maal haysan baan nahay naga aqoomihii aan meesha ku haysanay oo ashabaab ragoodi laayay baasaaka weerar dawladda ku soo qaad madaxweyne marka islaantaadii marwadaadii madaxweynaha marwadayadii weeye waa marwo Soomaaliyeed waa marwadii qaranka markay dadkii ummadii Soomaaliyeed xoolahoodii iyo dhulkoodiba halkaan gelisay oo xagga gelisay oo saa dambiil ugu guratay shaatigaagana ay wax ku dhacayso adiguna aad loog tahay adiga naagtaada maxaa idinku yeernaa madaxweyne adiga iyo naagtaada maxaan kuugu yeernaa madaxweyne inaan ku cayna ma rabno inaan kuu gafna ma rabno maxaad raalli ka tahay adigu oo aan kuugu yeernaa waa su'aalaan ku weydiinaya shacab weynow maxaan ugu yeernaa waxa ooyaya waa hooyo Soomaaliyeed ila qabiil maaha adiga kula qabiil maaha bal laga yaabaa inay asay qabiil tahay waxaa laga dhacay dhul banaan oo dawladdu lahayd oo xasan waagii hore iyo naagtiisu dhaceen farmaajo yimid oo ka soo celiyay oo dadkii dajiyay kadib buu soo laabtay isagoo caraysan oo yiri farmaajo waa tagay aan soo laabtay yaa eekii celinaya naagtii baa u timid islaantiisa u timid cagaf bay gelisay waa ekas control ku yaala dhulku waa kuwa hooyooyin Soomaaliyeed baa ooyaya meelay caruurta geystaan ma haystaan madaxweynuhu waa kii u dhaartay dadkan wixii dayacan inuu meel geyn lahaa xaq wuxuu u leeyahay qofkii Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed dayacan hadduu waayo meel u geeyo inuu soo kaxayo dhaho madaxtooyada ila deg waxa qulay waa hadii damiirku shaqeynaya weyn caalamka dawladdu maxay oo adeegaha shacabka weliga ma aragtay dad la leeyahay dhulkii dawladda waa laga saaraya dhul lama haystaan meel deegaan ma haystaan wax gal loo saaraya marka miyaysa dadka u dharan yaa xil ka saaran yahay haddaysan xaalad dawladda ku jidhay oo haddii aan la ku roon yahay laga saarayo yaa xil ka saaran yahay inuu baylahda ka xareeyo dadka u dhaartay ma qabiilkeeda u dhaartay xasanada u dhaartay islaantaadii weeyana waxa dhulkiina gadanaysa haddii aan la ku roon yahay dadkiina dayacaysa adiga islaanta maxaan ku yeernaa marka tuug tabada goysa oo aan islaam ahayn oo munaafiqa in lagu yeero afkaagaad raalle iga tiri adaana yiri tuug waxaan ahayn laguma yeeri karo adiguna tuug baa tahay islaantaaduna waa tuugo ee ummadda dhibka ka daa madaxweyne mana wali saysa madaxweyne ku sacbin mayno ka taa sagaalida ku garaacmeen mucaaradnimada shalay markaad mucaaradka ahayd ee aad farmaajo waa mareexaan ka lahayd intii aad oran jiray ka badan oran mayno bal qaybtood waa la xishoonaynaa naagtaada isfudheeniyo ilmaha ka dhashay ku oran mayno xaasha wajud waa wixii aad oran jiray adu naag qabta ilma ka dhalaysa madaxweyne aad oran jiray annagu ku oran mayno balse waxa la hadayo aan u jeedno gacantaan kugu tilmaamaynaye madaxweyne isku xishood madaxweyne Yaxya 4 sano hal sano ay barba hadda sii gudubtay ma waxa rabtaa inaad nagu dhamaysid adoo khudbaynaya in waqtigu dhaco hebel waa tuug hebel waa tuug musuqmaasuqaana dagaalamayna oo musuqadu ka hadlo adu ku dhabaad yaal dagaalamaysa maadaas la dagaalamaya madaxweyne madaxa bas ka dhufad intaas jaan adu madaxa isgo tuug ka weyn ma jiro islaantaada dumarkana islaantaada ugu tuugsan oo ugu big ah ragana ugu tuugsan sababtoo adaa shaati baa ku dhacaysa shacabku ay ka baroonaya anagu xamar ma joogo muuqaal lama soo duubin islaanta ooyaysan hooyaday ma aha adayba ku xigtaayo aday qabiil kula tag balse xaq baan u leeyahay inaan u hadlo warkeedana fogeeyo oo aan ku soo gaarsiiyo madaxweyne tuuganimada guriga ka bilaabanaysa musuq guriga ka bilowda islaantaada tuuga adigii baa tuuga gabadhaadii baa tuuga wiilkaagii baa tuuga sodohada tuuga sodoga baa tuug wixii ala isku meeray madaxweyne adoo xishoonaya marka dadku waa dad wax fahmay waa ku yaqaanaan in hebel ku yaqaan in culus way ku yaqaanaan familkaaga yaqaanaan magacaagii shaadkaaga wax ku dhacaya ama dhihi kara maanta islaanta wax dhacaysa ma ogi hooyada qaylinaysa ex control ka qaylinaysa warkeeda ma maqlin ama dhahaysa inta hadan dhahaysid soo hadal hadii kalena tuug aan nasab ahayn ee umro dooxa
haddii alla kuu roo yahay aan waxba reebayn ayaxa dirindiira kud iyo qanjo ah baa tahay ilaahay baan markhaanti gashanaya in shacabka Soomaaliyeed inaan dambi laga qorayn inaan tuug ku iraahdo adiguna tuug tahay islaantaadu tuuga tahay kala labayn mayo intaan adiga ku raali galin lahaa shacabka inaan raali galiyo xaq u leh xasan marka khudbadaadii intaasaan ka iri tuugan adiga ahayn ma jiree marka hore adigu iswaani isxisaabi kadibna umada xusheeg sanadkee laba sano wax dhimaan ku hadayna waxaad ku talagashay ku dhameysatid khudbad xagee ka dhacday tuug baa xaga maray xagee maday tuug ma aragtay ma nuguna ma adu waa anaguna markaa dhuusid baan soo dhigeen mucaaradkaas ay ahayd mid lamida nahay wiliba waa ka naastahanahay annagu waxaan garanaynaa dawladnimada iyo mucaaradnimada iyo adiga shakhsiyadda aan kala saarayna Soomaaliya mucaarad kuma ahay dawladda khawaarijna u soo raaci mayo sidii shalay MBB-du khawaarijta oo la safnaayeen anu khawaarijta leewato inta saxasan leeyahay ku si fogaan mayo العدالة waxay ugu yeedhaan u yeera iyo madaxa ay furan waxay soo bandhigeen shalay sadaraad video waxa lagu soo qoray khawaarij waa baaqbaaqsahoynaaye khawaarij waa jabtaye ma af iyo niiko ba khawaarij lagu jibinaya waa kana ayadoo screen shoodan ka qaadayna العدالة soo dhigay iyo heerada madaxa ay furan video ay ku faanayaan boorto video waa kane ila daawo ku faanayaan waa tahay videoga marka la soo bandhigay oo MBB da loo qaybiyay oo la Soomaaliya khawaarij baan ku abaasanayna videogaasi YouTube ku jira asagoo 5 bilood ka hor 5 months ago ay ku qoran tahay channel Kenyatia ayaana soo gashtay Kenyana waxay ku faanaysaa inay qolo terrorist argagixisa ay la dagaalamayso ayadana cadaynteedii marta cadaynteedii ma laga rabaa mise waxa la leeyahay beenta way waa tane ayadana ila daawo madaxa ay furan يا العدالة waxaan ku haytaa shaqadiisa ma aha asagu waa TikToker kale ninkaan la socday shaqadiisa ma aha asagu warfaafin yaalkaas nin buu kursi xoog kaga qaatay oo taleero miskiino asagu warfaafinta inkastoo warfaafintu ay tahay tan propaganda rabta inay umada kaga dhacayso 2003 baa la joogaa toban jirku wuxuu haystaa telefoon loo yaqaan beer salaax ama smartphone inta leeg فيديوغا markii saa soo qabatid abdana waxa jira tracking saa u gelinaysid oo asalkiisa meesha laga lahaa keenay adduunka hormaray baa la rabaa Soomaaliya in miidiyaheedii hadda kor waxaan dhageystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mar uu la hadlay cadaalad lahaa niyow Ayuub iyo Cabdiqaadir Boos iyo in la dhageysto ayuu markaas waxa Chelsea baa ku jiray maxaa loo dhageystaa nimankaas halka soo dira in la dhageysto waxa keenay ayagu xaqiiqada u dhow yihiin idinku TV-ga qaranka idinku ah بعد بين فافي سامبي هذا بين توجسان إذا كان الدقيقة يس بين اسمه العدالة وهو ربع هدر إنه ذكر عدعيه فيديو وحا كيني مدحية فرنبا كيني العدالة وديبي وحا وليه هي وحا أمد ذكر عدعي ساح إنها الشباب لديك عالمين والشباب عن بابي ني الشباب عربي داي فكياتي سعير سنية كياتي سعير سنية argagixisaha hadii la dagaalamayo ana diyaar ah inaan la dagaalamo adduunkan argagixisa anu nacba العدالة iyo madaxay furanba ana ka nacba argagixiso laakiin si daacad aan la diro argagixisa in la dagaalamo media laga dagaalamo anaga ay kala shaqeynayne dagaal daacad la yimaado madaxay furan oo aan arkay isagoo teera ku dhahay wariye teera oo barnaamijkii argagixisada wax badan fashiliyay sheegay
in ciidamada la shirqoolay la shaqeynaya anaga dhan banu eedeynaya jamac asaga si gooni uma eedeyn miidiyaha inta mucaaradka aan argixisada la shaqeynaya lama shaqeynayno wasiir khibrada argixisada ku dagaalanta malihid bilaal bulshaawi iyo adigu isku shaqaatay wasiir ma waxa ay ka dhaadhicinaysa ummadda arda u sheegto ummadda Soomaaliyeed ninka miskiinka TikTok raaya codka gabdhaha leh caleera cayrsaday caleere 17 sano 16 sano khibrad dagaal u leey faad shaqo sidoo kale Ahmed Diris sidoo kale xaqada ka wada hadalnaa ruma runta sheegnaa ka gaban mayna anu maxaa rabaa argixis loo dilaa yaa dilka argixiso dilaa experience ile islaan dhaxal soo qabaan oo sirka shaqada ka dhigaya ilaahay ku dhaashay islaan dhaxal shaqay maxay isdaamaan iyo dadka diyaal ku rooya kuaya anaga TV anaga fiyo noo keenaya TV-da Kenyaatiga ka soo qaadanay video waa soo qaadanaysid wiil adoo kala ba duubtay khibrad dagaal leh jaan wadanka difaaciya duubtay wadankaaga difaaco teera waxa ku eedeynaysa in adiyaalku argixisoo taageer ma u taageerin waxa uu sheegay fashalka ciidamada qoodin iyo xeladin iyo xiniintiin halkaas saraakiil badan baa ka daawanaysa khibrad ciidan leh muuqaaladii argixisadu soo galisay anu ma jeclina adeegsado dib u raaco daawada waxba ii sheegay waxba ay tusaya ciidamadii halkaa lagu baabi'iyey baa ay tusaya ilaa 10 xero baa midkiiba waxa lagu dilay 200 ciidan oo ciidanka Soomaaliyeed waxaad fiirsaa xeryahaas dhahashikooda fiiri wali ma aragtay ciidan even maaha istiraatiid ciidan kasta gogol garay adaa aqoon lahayn hadii kale nisirka ta taqaana wixii ciidan way luqad garanayaan wali ma aragtay ciidan la dhaxdajinayo kayn xiran oo 10 mitir qof ku jira aadan arki karin ciidan xiran looga sameeyay ma aragtay hadaa sarkaal tahay bal muuqaalka ashaaq daawo meesha ay baawta ku gubayaan ee waa bariga ciidan ku soo weerareen waa kaymo dhexdood ciidan waxa arki jirnay istiraatiid meel banaan daga difaac xirta xerada difaac tarajay loo xiro meel wax laga arkay ciidan la geeya ciidan xera xiran jeexa dhexdeed dagay meel biyo mareen dagayo jeexa dhexdeed miyaan ciidanka qoodhaay xerada iyo xiniinta aan la mashmin yaa dajiyay waxa dajiyay laga yaabay in walaalkay madaxa ay furan iyo waxa la midka ciidamada loo dhiibay laga yaabay in ayaga xumaan ka ahayn ee waa khibradooda aqoontooda si ayaga ashaaba aan u dhimay ashaabati laakiin markaan leeyahay waa la mishimay mishinku aqoon darro iyada mishin keenis waxaan aqoon lahayn hadii la ii diro ayada mishine askariga marka kaynta dhexdeeda biyo mareenka jiqda la dajiyay ee uu hal mitir wax ka arki karin in askarigaas inta loo yimid ala saydi ishawaaga saman lagu bilaabay muxuu arki karaa muxuu iska difaaca wuxuu arki karaa kaliya qofka halka mitir u jiro arki karaa qarax ila hal mitir qarax kala kac miyaa la mishmin waxa mishintay marka ama aqoon darra mishintay ama waa loogu talagalayo markii la yiraahdo hal dagaal galo oo qof aan aqoon lahayn ciidanka loo dhiibo waa ciidan lagu tagay in jibi adduunka hore idin sheegay adduunka fiiri waxaad fiirisaan wasaarad kasta oo difaac oo adduunku leeyahay fiiri garbacas baa fadhida anigana madaxay furan maantooka baa ii fadhiya marka ha iga dhaadhicinina madaxay furan baa dalka xoreynaya ninka la yiraahdo Ali Dheere oo 17 sano kayn ku jira فاسن قولوا تضوي توتر كين كتيره أو موضوعها بقول كايو تيك توك ما له ديارد بصراحة ديارد نقطة اسمحوا لي أرجع حسوا قال أدوبا راسقنا هاجي ما باي والمفروض بتجيس حد من تجيس اسكو صدوه وسوق فيني هذا الكي ومدة هداد وحقبت أرجع ساعة الله يصير أسوأ بندق إنسان kuwa idinku qabataan noo soo diray anaga youtuber Kenyaatiga iyo adiyaalka Ugandaiska ha noo soo sawirinina anaga idinku horeyna intaas aan leeyahay ninka gaaban ninka dheer isdaba socda TikTok rada intaas aan leeyahay waxaan ku soo koobaya hadalka halkii qodobka ugu dambeeyay oo fariin dhalinyarada beesha hartiya waxaan arkay maalin dhaweyd anigu aad iska mashquulsanaa
waxaan arkayay ciidamada sool ka dagaalamayo kale saraakiisheedoo kale oo la canaananayo xaq baa u leedihiin canaanta in kama soo horjeeda canaanta xaq baa u leedihiin laakiin ma adeeraya mid ku xisaabtama meesha ciidan baa jooga rag baa isku haya kuwa kale oo kaa soo horjeedahay waa ciidan iyo rag technical nooc kasta meesha taalla saraakiil baa joogta ku kalsoonaada saraakiisha shaqadeedii haysa ku kalsoonaada madaxweyne yeelanay guddoon baarlamaan yeelanay golaha halka baan yeelanay golaha baarlamaan yeelanay madaxweyne ku xigeen guddoomiye baarlamaan intaan leenahay intuba kama lixda jecel badnin intuba wayna la arkayaan hadii la ku rooyay dagaalku inta dheeraaday marka ku xisaabtama midna ku direction waa insiinayaa Russia oo dunida ugu awooda badan ayaa waxay soo weerarday Ukraine basoo weerarday hal sano la maraysaa de Russia ala ala samee artaan ku haysan maxaa nuclear ba haysta hal daqiiqay daminka dhacay oo dhan meesha yiraahdo muxuu ahaa bay'ada ay ka kooban tahay meesha la yiraahdo Ukraine hal saac ma soon daqiiqna ma 10 daqiiqna ma hal daqiiqadaha alla kamid ah buu bay'ado dhan hawada ka saari kara dagaalku hal sano la maraya marka saraakiil baa idin joogta hadalka waa idin dadaya saraakiisheena aan ku kalsoonaano wax fiican baa socda shaqo fiican baa socota maamulkii baa shaqada la wareegay madaxweynaha shaqada la wareegay shaqada madaxweynuhu markuu la wareegayo de waa difaac iska tirabatay intaas oo awaamiirtooda magacaabistoodii sidii hore loo dagaalgalay qabiilka waa laga baxay wixii oo dhan waxba isku dabridaya ilmaha reeyaal degdeg waa amal shaydaan madaxweynahaas shaqada la wareegay aanu ku ixtiraano oo hadii la ku rooyahay aanu ka dhowrno wax badan baa idin ogahay degdegan iska daay fariintaasna iga gaarsiiya walaalahay dhamaan inta halgankaas dhabta ka yahay jecel inay guuleystaan jecel in dhulkan laga xoreeyo cadawga dul fadhiya aad baan idin salaamaya SC wax xoroobaysa harti wax xoroobaya dhulkaas waa la xoreynaya hadii la ku rooyahay guushana idinka leh oo hantiyaysan laakiin isdajiya oo cadawgiisu idinka faa'iideysan aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh